السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي ولا له قالجة أصحابتي إذا شرفت له إلهي سبحانه وتعالى هايذن إلاليو إلهينا هايذن بركة دمانتي الملك استوت كسوغنتيهين ما شاء الله الحمد لله اسكو سو نقد وناكسن إلهي أيام هذا السجناتي المدو لغو بلوت هل كمان كمقنا سيدا عن فيلايو كل يوائي تبتين نوحان كمقنا كل أرنتا كمقنا ذاتك قارنا ويؤجيهين قارنا ما أيوغو بالحقيقة إن إذن سوء ويسي إن بدن وان شعلا لكن وي suurtagal weyday qalbi ahaan iyo dhan walba way igu suurtagal weyday waxaan ku maqnaa inaan idin soo ogeysiiyo insha Allah tacaala maanta waxaan usoo fadhiistay casharadeeni inoo socday oo iscilaaji gurigaada adoo jooga casharadii ahaa oo noo socday iyo hawlo kale badan oo noo socday midna hadda uma soo fadhiisanin insha Allah tacaala wixii casharkan ka dambeeyo ayaan usoo fadhiisan doonaa biidnillaahi kariim laakiin hadda waxaan usoo fadhiistay maanteeto inaan idin sheego arinta aan ku maqnaa bilxaqiiq dad badan oo waxaa jiro og oo ila xanuunsanayay oo ila danqaday oo ila kurbooday aad baa inkaga mahad celinayaa arinta ayada ee maasha Allah dad badan oon ogeyna way jiraan oo dadka aniga igu xiran bilxaqiiq dad badan aan ogeyn dadna way ogyihiin alxamdulillaah intii igala qayb qaadatay arinka aniga nagu dhacay intii igala qayb qaadatayna aad baan ugu mahad celinayaa 100% walaalahayga sharafta leh waxa igu dhacday oon u maqnaa geeri aad u xanuun badan oon caadi ahayn ayaa igu dhacday familgeena ku dhacday raxmaada janna ilaahay ha siiyo ilaahayna ha u naxariisto qof aan aad u jecelnahay oo aad si aan caadi ahayn u jecelnahay weliba walaalkay ilaahay waxaan uga baryayaa jannatul firdawsa yan ilaahay u weydiiyo biidnillaahi kariim waa dareemayaa insha allahu tacaala aad baan u rajeynayaa ilaahay agtiisa inay wax wanaagsan u yaalaan oo khayr badan maadaama uu ahaa qof aad u khayr badan oo la jecel yahay arlada sida looga jeclaa oo loogu ooyeyna waxaan rajeynayaa ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa in sidoo kale looga jeclaado biidnillaahi kariim ayaan rajeynayaa ilaahay raxmaada janna ha siiyo ilaahay jannatul firdawsa ha ku arsaaqo bilxaqiiq marka idiin sheego walaalkay 17 sano ayuu South Africa joogay oo na arag xilliga aan is arki lahayn uu soo bixi lahaa oon rabnay inaan aragno ilaahay ma qadarin ilaahay baa naga jeclaaday oo oofsaday ilaahay ma qadarin inaan aragno geeri aad u xanuun badan oo qalbiyan iyo dhan walba itaabatay bay ahayd laakiin alxamdulillaah waayo ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisa waa lagu samraa ilaahay subxaana wa tacaala qadarkiisa waa lagu samraa annagoo dhanna halkaas ayaan u wada soconaa waa un kala horeynaa oo keliya geerina haddii waaba cusbay maalin walba guri ayay ku cusub tahay maalin walba xaafad ayay joogtaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajeynayaa intii annagana la mida iyo intii islaamaba inuu ilaahay samir iyo iimaan wanaagsan siiyo oo dadkooda sidaasoo kale uga geeriyoodeen annagana ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu ilaahay nooga daba naxariisto gadaashiisna ilaahay subxaana wa tacaala uunana fidnaynin ayaan ilaahay subxaana wa tacaala ka rajeynayaa biidnillaahi kariim adinkana ree ilfis dhammaantiin waxaa idinka codsanayaa wax kale maahan hanti idinkama codsanayo iyo xoolo waxaa idinka codsanayaa ducada inaa iigu soo ducaysaan walaalkay in ilaahay jannatul firdawsa ku arsaaqo in ilaahay jannadiisa ugu bishaareeyo biidnillaahi kariim intaas ayaa idinka codsanayaa insha allahu tacaala dad walaalaan ahayn oo dar ilaahay isu jecel inta igu xiran oo dhan dar ilaahay baa idin jeclahay qof xun iyo qof wanaagsan intaba waan jeclahay alxamdulillaah cafiskana mar walba aanu badino inaa iscafino markasta cafisku waa wax wanaagsan hala iscafiyo waayo meel la isu soo jiro lama ogo naftan xilligay baxaysa lama ogo xilligay tegaysa lama ogo insha allahu tacaala intii dhimatay oo muslim ilaahay ha u naxariisto jannatul firdawsana ilaahay ha ku arsaaqo intii dhimatoo muslim annagana ilaahayga raxmaanka ha nooga daba naxariisto waa la dhimanaa qof adduunyadan joogaayo ma laha qof walba maalin ayay tegaysaa qof walba maalin ayay baxaysaa marka ilaahay waxaan ka baryayaa inuusan ilaahayna fidnaynin biidnillaahi kariim dunidan iyo fidnadeeda inuu ilaahay subxaana wa tacaala una raacinin ayaan ilaahay ka baryaynaa kuwo aanan fasahaad aanan ku dhimanin inuu ilaahayga raxmaanka naga dhigo biidnillaahi kariim ilaahayna waxaan ka baryaynaa ilaahow gafkanaga iyo geeridanada ha kulminin waa wax lagu ducaysto gafkanaga iyo geeridanada ilaahu ha kulmin biidnillaahi kariim
marka ree ilfis insha allahu tacaala isku soo noqod wanaagsan waan soo laabtay casharadanada waa ina socon doonaan iscilaaji adoo gurigaada joogo howlo kaloo badan insha allahu tacaala gadaashii soo kordhay dad baa jiro aan xataa lacaga ka hayay oo alaabo iga rabay kareemo iga rabay oonan siinin oo geerida igu dhacday anigoo alaabtii diyaarinayo ku guda jiro arrintaas nagu dhacday marka walaalahaas ayagana intaan ka raali gelinayaa insha allahu tacaala raalli ahaada alaabadiinina insha allahu tacaala hadda waaba idin diyaar waa idin soo baxday insha allahu tacaala in badan raalli noqda dadka way ogaayeen hadda isma dhigi karaan lacagtiina ilfis waa iskala seexatay way ogaayeen inay igu dhacday arrinta koley channelka sheekh badbaado dadka qaaraa ka daawaday oo ka arkay qaarna ma aysan arkin dad badan oo aniga igu xiran horta ma aysan arkin waan ogahay dad badan oo aniga igu xiran ma aysan arkin mana aysan ka warqabin waxay u malanayeen ilfis sideeda caadiga ahaydina isaga maqan tahay maya isagama maqnayn waayadan howlo fiican baa noo socday oo iscilaajin ah oo isdaaweyn ah oo shayaadiinta iyo xasidka iyo daalimiinta aan kula dagaalamayna noo socday marka iskama aanan maqnayn sidaas ayada ayaan ku maqnaa marka walaalahayga waxaa idin rajeynayaa caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash waana idiin soo duceynayaa idinkana iisoo duceeya inuu ilaahay qalbigana u qaboojiyo dhammaanteen samir jamiilana ilaahay subxaana watacaala na siiyo bilxaqiiq geeri aad iyo aad ii xanuujisay bay ahayd oo aad ii taabatay qalbiyan iyo dhan walba geeri aad ii xanuujisay bay ahayd laakiin alxamdulilah mar walba ilaahayga raxmaanka ayay mahad u sugnaatay ilaahay amaanadan asaga iska leh xilliguu doonanu ceshanayaa soo cidna kala tashan xilli alaal xilliguu doono ayuu ceshanayaa laakiin waxaan isu dardaarmaynaa cabsida ilaahay ayaa isu dardaarmaynaa ittaqullah xaythamaa kuntum meel kasta oon joogno cabsida ilaahay aan isu dardaaranno insha allahu tacaala aa isbarno oo walaashiin ilfis insha allah balla isu soo duceyno biidni illaahi kariim idinkana iisoo duceeyo anigana idiin soo duceeyo walaalo badan oo xanuunada ruuxiga la dhiban baa jiro ilaahay subxaana watacaala ha ka dulqaado ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay ka dulqaado xanuunadaas ruuxiga ay la dhiban yihiin ilaahayga raxmaanka ha ka dulqaaday insha allahu tacaala dad badanaa jiro xanuunadaas ruuxiga la dhiban bilxaqiiq xaasidiintuna way xun yihiin iyo shartooda ilaahay ha naga qabto isagaa raxmaan ah xasidku waa daalim ma in la dhimanayo iloobay in la cadaabayo iloobay inuu ilaahay subxaana watacaala xilliguu doono uu imaanayo uu qaadanayo ayuu iloobay xasidka qofka walaalkiisa xasdayo ilaahayga raxmaankaan ka magangalnay waxaan qof walaalkeena aan ku xasidno oon ku dhibaatayno ilaahay baan ka magangalna biidni illaahi kariim walaalahayga sharafta leh khayr baa idin dardaarmayaa insha allahu tacaala aan isu soo ducayno ducada la kala maqan yahay waa maqbuul way wanaagsan tahay waa la aqbalaa markuu qofka walaalka asagoon ogeyn aad u ducayso adigana asagoon ogeyn uu kuu duceeyo waa aqbal insha allahu tacaala dad gabar abaayo iyadana duca soo dalbatay in loo duceeyo oo dhibaato haysato insha allah casharada ka dambeeya ayaan idinkula soo wadaagi doonaa biidni illaahi kariim abaayadaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabilaahi towfiiq